gudoomiye waxaad ka warantaa deegaankii aad ka timid degmadii Baki bal xaalkeega sidoo hanoo bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa salaan kadib degmada Baki waa nabad kulli santaan abaareed way ka jirtaa laakiin dadkii bari ka soo hayaamay ee abaaru soo barakaciyeen degmadeeda way ku yaryihiin marka area dil laga reebo haddii aan ka warramo xaaladeeda waan horena warbixin waa looga bixiyay ogolaayaga deegaanka iyo gudoomiyaha Bashir bay ka qabteen anoo Baki joogaan shir ku qabteen xaaladaasi xaalad u baahan in golaha gudida maareynta abaaruhu inay xaqiraad soo yimaadaan anuu sheegi ma yaani abaar buuxda ka jirta malii maanta laakiin saasaan abaareed baa jirta dad iyo xoolaha dadku aad buu wanaagsan wali oo gugii hore ee ay diraacdii hore aad u daaday xoolaha aad bay wanaagsan yihiin gobolka intii deegaanka ku hayd gudoomiye dadku waxay tuhmaan inta badan deegaankan aad maayirka ka tahay degmooyinka kale maayir kasta wixii uu qabtay buu dadka tusaa isdifaacid baa la yiraahdaa maxaad caatay ayuu ku jira markasta xildhibaanada iska ilaalinay deegaanka wali wada iyo district sax ama meel yaro aad buuxisay wali lama hayo halkee wax ka say haddaan taa kaaga warramo waan buuxinayo dadkii ugu horreeyay TV-ga laga daawaday ee wadooyinka ku sameeyay gaadiidkoodii iyo lacagta ay shaqeeyaan ayaan hayn degmadeedu waa degmo buurley ku dhex taalla waxaan qabanay inta haddaan ka sheego gobolka Awdal degmada ugu wax qabad badan baan inta xilkaan haynay ugu yaraan 280 mashruuc baa ka fulay oo beeraha loo waxbarashada loo caafimaadka loo wadooyinka loo biyaha leh yaa ka fulay maanta way socdaan waxa ka socda saddex magaalo oo biyo gelin buuxda lagu hayo iyo beeraha mashaariicda beeraha oo ay wado Islamic Relief iyo hay'adda laanqayrtaas ayaa ka socda saacada la joogno maanta la joogno gudoomiye waxa la inta badan degmada Baki waa degmada hay'adaha gobolka ka hawlgalay ay ugu shaqada badan yihiin wax soo saarka khudaarta iyo dadka deegaankani waxay cuni lahaayeen inaba lagama dhaxarko oo ma ka fargareysaan meesha ma lacag un baa lagu cunaa gudoomiye maxaa wax loo soo saar lahayn sidoo horta dadku waxay doonaan lacag waan iibsanaa raashinka dadku u baahan magaalooyinka iibsanaa waxaan soo saaraa basal baradho ama tamaad ama basbaas beeraha soo wax noocaas waxa ka maqan cuntadii dadka wax badan baa lagu soo leeyahay hadii adimka magaalada hadood baa ku jira oo oranaya hadii raashinka dadku cunno soo saarin macawladii way joogsanaysaa dadku imkay beeraan wixii la cunayay laakiin ma wax degmadu maamusho waa dadka deegaanku ay dhaqan u leeyihiin dadku lacag u raadiyaa lacagta raashin baa lagu doontaa laakiin waa degmo wax soo saar degmada dakhligeeduna wax soo saarka dadku ku xidhan yahay beeraha ka soo baxa sida laajigeed wax aqabad ku oo dhibta weyn ay ka taagan tahay waa wadooyinka haddaan maanta sameeyno wado oo galabta rubdo halkeedii meel ku xun bay tagaysaa waa dhul aad u foorara mid kale waxa ku jira dhibaatada ka jirtay degmada ee koobaadna wax weeyaan taa ka sii number 1 sane waxa xalfka gobolka degmadu waa degmada ilaahay ku manaystay dhirta kaloolka iyo sugsugtii wax noocaas waxa la moodaa in gobolada dalku dhan dhuxusha looga shito taasi xoog laan qaadnay annagoo wadooyinku nagu badan yihiin oo gabilay ay saddex wada galaan Hargeysa saddex galaan Boorama afar soo galaan Djibouti inta kale oo dhan u baxdo waxaan weynay yani ciidan inta ka fargareeya ma hayno midda kale degmooyinkii nagu xeeraa oo nala joojiyaan dhuxushi dawladda dhexe haddaan run sheego sibada wasaaradda horumarinta reermiga kama helo wax gacan oo gargaar kama helo salaadiyo degmada qodobka koobaad ee baahideeda koobaad ama dhibta koobaad maanta abaaraha noo jibinaya waa xalfka deegaanka macdan baa laga soo qadaa oo halka macdanta laga soo saaro degmada adiga maamula marka meel macdan laga saarayo daweyn maalgelin lagu sameeyo deegaankay ka tirsantaa oo meesha la horumariyo haday dadkeega tahay haday dhulkeega tahay haday xoolaheega tahay haday beeraheega tahay intii midna lama hayo waxa macdantii un baa la guranaya macdantii un baa xafiis Hargeysa yaala lagu kala saxanaya qalin adigu maxaad ka ogtahay hawshaasi waan ka wada hadalay wasiirka macdanta iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta annagoo ogol deegaanka wali kala hadlay aniga ma yaraan kala hadlay arintaasi waxa la yiri inta dadku baranay yani waxyaalaha aan ku ogolaadeen dalkani wali ma la shirkado yimaad oo la soo eegto tan waa tii ugu horeysay baa la yiri anin baaburkaani baa la gaaray caafimaad baa laga furay dugsi baa laga furay dadka deegaanku shaqo ay ka heleen inkastoo uu xijoogsay maanta uu istaagay wana shaqadii ma socon horumarkaas dhinaca deegaanka waa laga horumar baa laga sameeyay deegaanka waxa laga qodayo horumar baa laga sameeyay haddii horumar dadka deegaanka loo sameeyay waxaas waa waxa ay degmadu heshay oo degmadii baa heshay wax dadka loo qabtay ma garatay
laakiin waxaan doonaynaa marka waxaan la barto in 10% aan ku yeelanahay iyadoo taasi aan qaadanay horumarkii meesha lagu qoday horumarkeediina dheer yahay 10% wala waxaan ku heshinay dawladda iyo madaxweynaha iyo wasiirka macdanta adiga xildhibaanadaadu town balan magaalada ma u dejiseen magaaladaas qaab degmada Baki waxay leedahay bank ama town balanka ani Soomaaliya wax liibaan jirin ani lahayn ba idli baan jirin yani hadda daragta kaagisan laakiin magaalada waxa ka dhiman dadkii madaxweynaha u ahaa ama dhaqaalaha helay reer awdal ma maalgashadaan oo degmadu waa wadamo ka fog magaalooyin kale ka godoonsan wadooyinka la tagay yihiin oo baabuur si dhibir ku tagin dadkii magaalkii boorama u hoydaan marka waxaan leenahay man maalgashado hordheel ba hadii maanta wax weyn anagu waxaan ka dhisnay mashruuc xafiiska ugu qorxoon gobolka degmada dawladda soo dhisnay intaan ugu xilkayna wala dhisay haddaan ku warmay mashruuca laga qabto ku tiri kari maayo iyadoo aan weligeed lagu qorin computer warqad amba scan amba printer amba photocopy laga heli man ka furay anagu ku urur dhalinyarada waa jira meesha doonta maanta tibado dhowr iyo 10 baan ka furay anaga ku caawnay dadka liima soo iibsana urur dhalinyaro sameeyay baan sameeynay shaqo abuur waan ka dhignay xaflad lagu shaqo tago oo dadku ardaydu la baratana waan ka dhignay marka taasina waxa weeyaan aan jeclahay in ay noqoto yani degmad dadkeedu maal gashado la yimaado oo ku fikrana hadii xildhibaanada golaha deegaanka xiriirkeeda ka dhaxeeyo Allah xiriirka naga dhaxay aad u fiican aniga golaha deegaanka waxa maana ma jirto maanta wada shaqeynaa 13 xildhibaan wada shaqeynaa maanta dhinac wada jeednaa taasi wax dhibaato kama jiro had shacabka deegaanka u dhashay madaxweyne ku xigeenka oo inta badan lagu tuhmo inuu siyaas deegaanka soo jeedo madaxweyne xigeenka deegaanka soo jeeda gobolka Awdal ka soo jeeda intii karaankiisa inaan wax qabano uu jecel yahay waxaan ka codsanaa inaan la qabto runtii waxaan leeyahay dadkayga shacbiga ee reer Awdal reer Baki siba reer Baki deegaan qurux badan bay nolosha qurux badan taalaay deegaanka ilaashano